Assalamu alaikum. Kusoo dhawaada kanaalka Cabdicasiis Boodle. Maanta waxaynu ka hadli doonaa taariikhda Nelson Mandela. 18 July 1918 ayaa Nelson Mandela ku dhashay meel lagu magacaabo Kunu oo u dhow tuulada Amtata. Aabihiis Henry Gadla Mandela waxa uu ahaa hogaamiyaha deegaanka Thembuland. Markii uu dhintayna waxaa darajadaas loo caleema saaray Mandela. Waqtigaas Mandela waxa uu ku hamiyay in uu noqdo qareen. Mandela waxa la qoray Hilltown Methodist Boarding School, kadibna waxa uu bachelor degree ka bilaabay Fort Hare. Waqtigaas oo ahayd 1940 oo uu ka tirsanaa ururka SRC, waxa uu ka qayb galay mudaharaad ay ardaydu dhigeen. Markaas ayaa laga eriyay waxbarashadii. Dadkii waqtigaas lala eriyay waxaa ka mid ahaa Oliver Tambo. Kadibna waxaa Mandela waxbarashadii uu ku dhamaystay qaabka loo yaqaano correspondence ee Johannesburg. Waxa uu isu diiwaangeliyay LLB ee jaamacadda lagu magacaabo University of the Witwatersrand. 1944 Mandela waxa uu ka qayb qaatay aasaaskii ururkii dhalinyarada ee ANC ee lagu magacaabo ANC Youth League. Ururkaas oo markii dambe qaab siyaasadeedkiisii ay dejiyeen ANC 1949. Sanadkii 1952 waxaa Mandela loo doortay hogaamiyaha ololihii la magac baxay ololihii ka madax adayga ee lagaga soo horjeestay kala faquuqa dadka xagga sharciga. wuxuuna waqtigaas u safray meelo kala duwan oo Koonfur Afrika ah si uu u abaabulo ololahaas, waxaana markaas lagu xukumay joojin ololahaas ah. wax yar kadib waa la mamnuucay, waxaana Mandela lagu qaaday sharci inaanu ka bixi karin Johannesburg. waqtigaas wuxuu Mandela abaabulay qorshihii ma'da amba qorshihii loo yaqaanay M-Plan, kaas oo faracyadii ANC loo kala jajabinayay unugyo qarsoodi ah ama si qarsoodi ah u hawlgala. Isla sanadka 1952 ayaa Mandela iyo Tambo waxa ay Koonfur Afrika ka fureen xarun sharciga oo ahayd tii ugu horeysay ee wadanka oo ay leeyihiin dadka madow. markaas ayaa Mandela waxa uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka ANC ee heer qaran. codsi wada jir ah oo ay qoreen ama ay saxeexeen qaybta qareenada ee loo yaqaano Transfer Law Society oo ahaa in habka qareennimada lagaga xayuubiyo Mandela ayaa waxaa diiday maxkamadda sare ee Koonfur Afrika. sanadihii kontomaadkii qaybtiisii dambe waxaa Mandela lagu soo oogay dacwad ah khiyaamo qaran, taas oo isagu isu ahaa qareen istifaacaya. 1960 ayaa ANC la mamnuucay kadib xasuuqii Sharpeville, waxaana Mandela la xiray ilaa 1961 kadib markii uu dhuumaanaysi galay si uu u abaabulo shirweyne qaran. isla sanadkaas waxaa aas-aasmay Umkhonto Weizwe oo ahaa garabka military ee ANC. waxa ay bilaabeen curyaamin dawladda ah iyo dhaqaalaha, taas oo uu Mandela hogaamiye ka ahaa. 1962 ayuu Mandela u ambabaxay dalka Algeria si uu u soo qaato tababar xagga militariga ah. markii uu dalka ku soo laabtay ayaa la xiray iyada oo lagu soo eedeeyay inuu wadanka si sharci darro ah uga baxay iyo inuu dhiirigeliyay mudaharaad, taasoo isagu isu noqday qareen istifaacaya. waxaa markaas bishii November 1962 lagu xukumay 5 sano oo xadhig ah. intii uu xabsiga ku jiray ayaa lagu soo oogay xukunkii la magac baxay Rivonia Trial, kaas oo lagu soo eedeeyay curyaamin ama kharibaad qaran, waxaana lagu xukumay xabsi daa'im amba madaxaagu ha ku furto. Mandela waxaa lagu xiray xabsiga aadka loo ilaaliyay ee ku yaala jasiiradda yar ee Robben. xabsigaas oo loo yaqaano Robben Island Prison waa jasiirad yar oo 7 kiiloomitir gudaha ugu jirta badda ugu dhow magaalada Cape Town. bishii Abriil 1984 waxaa Mandela loo bedelay xabsiga loo yaqaano Pollsmoor Prison
oo ku yaal Cape Town bishii December 1988 ayaa loo wareejiyay xabsiga Victor Foster Prison oo u dhow Paarl, taas oo ahayd meeshii ugu dambeyntii ka soo baxay 27 sano 6 bilood iyo 6 cisho ayaa uu xidhnaa Mandela. waxa uu xabsigana uu noqday goob waxbarasho, taas oo uu isagu abaabuli jiray inay maxaabiistu waxbartaan, lamana soo sheegin inuu marna ka tanaasulay mowqifkiisii, iyadoo xataa loo soo bandhigay in la cafin doono. Axad 12 February 1990 ayaa Mandela xabsiga laga sii daayay. Mandela waxa uu ka haystaa darajo sharafeedka loo yaqaano honorary degrees in ka badan 50 jaamacadood oo dunida ah. 1933 waxaa Mandela la guddoonsiiyay darajada amba shahaadada loo yaqaan Nobel Peace Prize, taas oo uu magaalada Oslo, Norway 10 December 1993 ka jeediyay khudbadda aqbalaadda Nobel Peace Prize-ka. 10 May 1994 ayaa Mandela loo doortay inuu noqdo madaxweynihii u horeeyay ee Koonfur Afrika si xor ah loo doorto, wuxuuna madaxweyne ka ahaa ilaa June 1999. xukuumaddiisuna waxa ay noqotay tii ugu horeysay ee ka dhigta Koonfur Afrika meel ay u siman yihiin ama ay isku xaq yihiin dadka kala midabka ah ee u dhashay dalkaas, taas oo weliba aanu ku dhaqaaqin wax aargoosi ah oo uu u geystay dadkii xukuumaddii hore ee xabsiga ku hayay 27 sano. June 1999 ayaa Nelson Mandela uu ka fadhiistay howlaha shaqo. Nelson Mandela waxa uu dhintay 5 December 2013. intaas ayaynu ku soo koobi doonaa taariikh nololeedka ninkii midabta koorka aadka u nacba ee Nelson Mandela.